سيدميل برواقة وبور دادير وبيبال مرايو بربركنا درورو كقلبي غيرو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أخرت شرفت لي ملك سودوني كقول جوتان وولكن خضريو إيا جنالك خضريو فضلا هديات hore subscribe noogu saarin waxaan ku leenahay subscribe noo sar oo soo dhow hadii aad hore noogu saartana aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka caawa suuq ayaa loo soo baxay marka waxaan jeclaystay inaan vlog yar idin soo duubo marka aan isla socono akhyaar sharaf leh haddana waxaan soo gaadhay meelaha la iska yimaado waqti la iska qaato hadda saad u jeedaan waxaan dhex taaganahay meel wada ah waa wado qurux badan saad u jeedaan waa wado lagu lugeeyo nolol baa ka baxaya hareeraheeda waxaa ah xagga iga dambaysa waa restaurantiya ah saad u jeedaan kamradan ku qabanaya waxaa kaloo iyadana ah meel doog ah saad u jeedaan waa dhul doog ah oo qurux badan xabadaada hore loo imo markaad aad gaajootana halkan saad u jeedaan geedaha trigaas waxa ka dambeeya restaurantiya ka dambeeya cunto laga cuno halka waxa ku taala maxay maqaaxi ama restauranti xalaal ah halkana waa meel ugu lugeeyo aad u qurux badan haddana waxaan idin geyn doonaa meelo kale oo qurux badan isla socod wanaagsan sida webiga iyo let's go haddana waxaan soo gaadhay meelo ka mid ah meelaha ugu quruxda badan ama la yimaado ee la iskaga qaato jawi degan saad u jeedaan halkan iga dambaysa nalka iftiinka ka baxayo waxa weeyaan waa meel aad u qurux badan kuraas baa dhex taalla muusig yar oo mataqaana maxay kii jawi degan ah biid nabadeed ayaa ka socda markaad xaafadda ku soo caajisto ama wax soo dareento ayaa la iska yimaadaa haddana aan wada daawano waan ku dhawaanayaa saad u jeedaan waxay bixinaysaa kalaraan kala nooca saad u jeedaan waxaa dhex yaalla kuraas baa ku dhex taalla la iskaga raaxaysto dadku way yimaadaan waqti bay iskaga qaataan arof mataqaana maxay ahaydeen markaad xaafadda ku soo caajiso marka wakaas إنما عادي ما نقول هدي أد ماشي من السوق أديك وكلية هي من حبض هذا يرهروا سوق حيسو ده وكا جوي مع قاطع مركز هالكن كسود شو واحد من كرتا هالكن أتكسر وين صح هالكن هوس بصر على عيسى واحد من صح هالكن بيها نقروح البدن حتى بس كافر زن صح ودول هذا قروح بدن بيها هذا قروح بدن قالوا ولا الركض ويدستين saad u jeedaan doog ba halkaa ku yaalla doogaas iska fadhiisan kartaa biyaasana iska daawan kartaa waa biyo xareed ah lama cabi karayo laakiin haddaad u baahato biyaada cabto waxay ku sameeyeen biyo la cabo way leedahay marka wakaas ila socda let's go haddana waxaan soo gaadhay swimming poolkii saad u jeedaan halkaa iga sheesa waxa ka soo dhacay waa biyihii weeyaan halkan waa swimming pool waad ku dabaalan kartaa waa swimming pool gacan ku samaysa ama man made su kamarada dhinac kale u jeedin saad u jeedaan innaba caadi maan ku leeyahay waa aad bay u qurux badan tahay waa webi yar ama maxay swimming pool yar oo indhaha aad ugu roon ku leeyahay kalraaman kula bixinaya halka biyo ka soo dhacaya marka waa lagu dabaalan karayaa hadda waxaan ku jirnaa waa xilli habeen ah samar dawo inna caadi ma wali waxaan ku guda jirnaa vloggeeni iyo meeshii quruxda badneyd ee joognay South Bank hadda halkan aad u jeedaan waa beach yar oo gacan ku samays ah waa meel lagu dabaalan karayo hadda waa cidla
xilliyada samarka ama kulaylaha ah dadku aad bay u yimaadaan aad baa loogu dabaashaa aad baa laysugu qaboojiyaa aad bay u qurux badan tahay waana go'aan ku samays waana magaalada maxay cityga bartinkiisa weeyaan saad u jeedaan marka haddana hore baan u soconnaa iyo cityga sii dhexgelinaa isla socod wanaagsan hawdiyo bannaano bashunaabad bariisaada qaybtanna waxa weeyaan waa qaybta ugu dheer waxaa ku dabaalan karaya dadka waaweyn baa ku dabaalan karaya daada bay kala leeyihiin saad u jeedaan qaybtaas xaggaas ah waa ciyaalka yar halkanna waa dadka waaweyn because sababtoo ah way ka dheer tahay way yar dheer tahay innaba caadi maahan ku leeyahay marka isla socod wanaagsan citigana waa kaaba agtiisa halkan yarna waxa ah meel yaroo iskaga nasan karto dugag xaggaa ka dambaysa waa musqulihii ama suuligii sida loo yaqaano restaurantiyadu way ka dambeeyaan caadi maan ku leeyahay isla socod wanaagsan akhyaarta sharafta leh haddana waxaan soo gaadhay webiga aad saad u jeedaan waxaan waa webi wuxuu kala badhaa magaalada ayuu kala badhaa bartankeedu maraa uu ku qaybsan yahay aad buu u wareegsan yahay halkana saad u jeedaan waa citigii webigan waxaa ka shaqeeya doomo ayaa ka dhex shaqeeya isagoo kala goosha marka hadda waa xilli dambe oo habeen ah way wada kala hoydeen halkana waa dhul la iskaga lugeeyo baaskiilada la iskaga eryadaa waa la iskaga lugeeyaa waa dhul dalxiis aad u qurux badan marka ani hadda waan ka yar dheerahay dabaqada waa kuwaas haddaad u baahan tahay inaad u gudubto ama aad iskaga dul wareegto doomaha ka shaqeeya xilliyada maaragtay samarka ah ama kulaylaha ah dhulkan aad u jeedaan dad meel la kala maro lama helo laakiin hadda waa qabowgii waana xilli dambe habeen waana weekday marka waxaa la wada kala galay guryaha ayaa la wada kala galay qof walbana wuxuu la qaadanayaa xaafadiisa ayuu qabowga kaga xarooday markaas la socdana abo saalixow one last thing waxaan idin soo tusi doonaa haddana meel yar oo ay ku qoran tahay magaalada magaceeda iyo meel yar kale iyadana maxay ahayn adiga aan meeshan ka fogeyn saad u jeedaan halkan waa meel la iskaga caweeyo waa doog waxa aad u jeedaan nal ka soo baxayo waa meel la iska fadhiisto dhismayaal ah marka waxaad ka daawanaysaa viewga cityga iska daawanaysaa iyo webiga ambala yarna sawaan daale halkan oo kale dhagaxaantan waxaad iskaga qaban kartaa sawiraan baad iskaga geligeli kartaa aad bay u qurux badan yihiin xagga gadaashiina waxaa ah cityga viewgiisii webigii innaba caadi maahan ku leeyahay halkan waa halka doonta laga raaco halka waa terminal 2 weeyahan haddana waxaan soo gaadhnay isla waxaan dhex soconnaa vloggeennii meeshan nalkan cas ka baxaya ama guduudka waa bridge laga gudbo gawaadhida iyo dadkii halkan hadda taaganahana waa meel dooga dadku iska fadhiistaan xilliyada kulaylaha ah jawi degan cityga la iska daawado not stress baan ku leeyahay buuga caadi maaha xaggan gadaasheedana waxa weeyaan balanbaalis qalin malik balanbaalis qalin malik balanbaalis qalin malik balanbaalis haddana waxaan soo gaadhay meesha ku qornaa magaalada magaceeda saad u jeedaan magaalada magaceeda oo kaas waa Brisbane xarfo waaweyn weeyahan sawiraan baa lagu gelgelayaa waad kori kartaa waad ku fadhiisan kartaa aad bay u waaweyn yihiin marka waa subaxnimo hore xilli hore aroor hore marka waxaan jeclaystay bal inaan idinku soo daro in yar oo maalinimo ah
haddii aad soo gaadhay ilaa hadda oo daawanaysa noola socotay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay kolley waxaan ku saqaynaa qaybihii ugu dambeysay guntii gabagabadii waxaa mar labaad naga xusina fadlan haddii aad horey noola soconin inaad nagu soo biirto ood naga mid noqoto haddaad horey noola joogtayna aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay marka asxaabtaada la sii wadaag haddii fiidiyoyaasha noocan oo kale ah aad ka heshay ama aad xiisaynaysaan let me know qaybta commentiga insha allah anna waxaan idiin soo ballan qaadayaa inaan idiin soo gudbiyo falogyo noocan oo kale ah meelo qurux badan iyo meelo kala duwan mar walba waxaad jeceshihiin ayaan anna idiin samayn doonaa marka aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waa walaalkiin khadriyo oo idin leh isla socod wanaagsan fikirkiinna aidiyadiinna waan soo dhowaynayaa marka insha allah kolba saad jeceshiin ayaan idiin samayn doonaa maalinkiina magaaladu saasay u eg tahay halkaas xagga naga dambaysana saad u jeedaan waa isla meelihii aan joogay xalay toole oon maalinimo imaday waa subax hore marka asxaabtaada la wadaag waa inoo videoga xigta asalaamu calaykum وبيبال مرايو